السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتا أسوفيشيال مالكستو أجوبتان. السلام الله عليكم. وحالك أبرتين سوماليين جامديال روايدو iyo waxyaalo kala duwan maanta halkan wax ku haynaa qiso jacayl oo inoo soo gudbisay gabar ku xiran asal official asxaabteena ka tirsan wixii talay tusaalaan waa xaqiina asxaabay gabar ku dhalatay gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Galkacyo gabadhu waxay magaalada Galkacyo kuma dhalan laakiin baadiyada ay ku dhalatay gabadhu waxay ku soo kortay magaalada Galkacyo habarteeda ay la joogto hooyada baadiye ay ku nooshahay aabaheedna wuu dhintaba sida ay ugu tiri habarteeda ay la joogtay waxbarashadeeda dugsi sare dugsi dhexe halkaas ay ku soo qaatay dugsi hoose kadib waxay u soo wareegtay magaalada Muqdisho si ay jaamacad uga gasho waxay timid eedadeed oo degan magaalada Muqdisho waxay gashay jaamacadda Soomaaliya waxbarashada halkaas ka sii bilowday iyadoo waxbarashada ugu jirto ayaa waxay isbartay wiil kale wiil Soomaaliyeed xiriir ayaa dhex maray xiriirku wuxuu isu bedelay jacayl qurux badan oo xushmad qadarin iyo kalgacal ku dhisan adiga adduunka ku reeyay iyadoo waxbarashada wadato jacaylkeedina ay ku kalsoon tahay ayaa maalmaha kamid ah qadar aan ku dhacay gabadhii waxay gashay shil mootada ay la socotay ayaa shil gashay gacan iyo lug iyo dhinacaadii naafo noqday gabadhii isbitaal ayaa loo cararay isbitaalkii muddo ku jirtay muddaas aan ku jiray tiri hal mar ii yimid halkii mar ii yimid wax badan xataa ilmo joogin wuu fiirshay ambaar salaamay wuu iska baxay aniga saaka laga saaray xaafadda la keenay xaafadda lagu baanay ama joogay waxay dhahday wiilkii waan wacay mobile ma qabanay maalinta laga qabtay waan ku imaanaya ayuu yiri hal mar way yimid tiri maalin ayuu meesha ila joogay gurigii yimid kadib waxba iimu sheegin ilaa qof marka dan ka leedahay life marka uu timaadada wax loo sheegay moogtahay waxay tiri haddana waa wacay aday laba isbuuc kadib ayuu mobile qabtay wuxuu ii sheegay inuu bixi rabo oo safar yahay xagee aadaysaa xagees iyo taysaa inaan is aragna laga yaabaa laakiin hadda safar ayaan ahay oo waxaan u socdaa Nairobi Kenya ayaan socdaa run ahaantii wax ka qaban kara ma aha inay tiri anaa waxaan sanadteeda haysatay uu baxay tagay xaguu aaday Nairobi safarkiisa soo galay adigu muddo badan cid loo far badan Saciid Kambi isla sheekaysi oohin ayaan galay tiri kadib adiga mobilada waxay mobilaysi lambaradii aan ku aqaanay iska bedelay dhawaanadii aan ku aqaanay iska bedelay waan baad goobay tiri kadib meesha ku dambeeyay ma dhintay ma nool yahay ma guursaday waxa uu kala qabsatay adigu waa raadiyay tiri dad ayaa ii soo xaqiijiyay in uu guursaday ninkaasi xaas leeyahay waxay tiri lambarkiisaan raashay haddana waan soo xiray waan wacay waxaan u sheegay maxaa kugu dhacay baan eri wuxuu ii sheegay in uusan aniga uu sidaas ugu nabadgeliyey awal wax uga socday ahayd markii dhammaystirnaydee aan isa gaarin dhibaatada laakiin qofna hadda ciddada ay ugu cayaysa ayuu igu yiri tiri hadda waxay tiri waan ooyey oo waxay tiri kaligii waxaan garwaaqsaday tiro dadkaan inaysan asxaan lahayn maanta aad fiican tahay bisle ay ku eeganayaan maanta aad xuntahayna cidda kaga tagayaan qisada horta intaas ku eg tahay dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa leenahay qofka aad balantooda gasheen si walba uu yahay waa inaad ugu dulqaadataa hadduu adiga ku xumayn ha xumayn adiga waa wax meel ku yaala bixi laga argoynaya adiga gabadha waxaa leenahay baa isaadkee noloshaadana ha u burburin hal qof riyo ku soo martay ku dhaaftay noqonaysaa ay ka dhigo alla kuma sameeyay asxaabtana waxaan ka sugaynaa commentigooda inaan fikradahooda iyo gabadhaas ay ku caawiyaan fikradooda qisada halkaas ku eg tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh markaas aad joogtaan maalin qurux badan